odayaal dhaqameedka degmooyinka Guradhaha Moole, Gurabaqaqsa iyo Qarsaduule oo telefishinka SRTV u waramay ayaa waxay sheegeen degmooyinka Gooro, Guradhaha Moole iyo Qarsaduule marka hore waa degmooyin ku fadhiya dhul ballaaran waxay u dhaxeeyaan webiga la yiraahdo Weeb ilaa iyo webi weyna ama webiga Ganaala loo yaqaan ama Ganaane horta saddexdaas labada webi dhaxdooda ayay ku fadhiyaan labada webi dhaxdoodana waxa ku sii jira laba webi oo kale oo la yiraahdo Maana webiga Maana webi xilliyada iyo webiga la yiraahdo Weelmaal oo asna u dhaxeeya Guradhaha Moole iyo Qarsaduule dhulkaasu waa dhul ku teedsan deegaanka Oromiya gaar ahaan gobolka la yiraahdo Baali buu ku teedsan yahay 9 degmo oo gobolkaas ayuu jaar leeyahay waa dhul maxaan ku yiraahdaa xilliyadii aanu ka soo gudubnay ama taariikhii la soo maray dhul dhan walba maxaan ku yiraahdaa ka liito oo aan dawladii hore daryeel soo helin waxbarasho soo helin caafimaad helin maxaan ku yiraahdaa wadada iyo isgaarsiin ee midna aan soo helin dhibaato jirta waxay ahayd dargigii iyo kuwii ka horeeyay wadankan Soomaaliya oo dhan baa la qabnay dawladdeegaankan la qabnay waxa la dhihi jiray reserve area deegaankan wuxuu ahaa meel dhufayso oo maartay Soomaaliyeed la iskaga ilaaliyo baan ahaan jiray meel dawladii ka horeeyay wax gashada noolata dawladdeegaankan la qabnay aan ka sii liidanay isbedelkan dambe markuu dhacay xurratul qowlka la helay haddana waxa weeyaan anaga xukuumadda aageeda waan ka fogeyn dhowr iyo 10 madaxweynaha soo maray wax wali dhulka inta dhan haddaan sheegaynay intaas oo kilomitir ah intuu arkay soo fiiriyay malaha dhigtun baa laga xukumayay goor iyo Guradhaha Moole iyo Qarsaduule wal sheegan baa ahaayeen laakiin xukuumaddu weligeed ma arag gudiyada socdo oo kalkal imaadana way imaanayeen wixii markii dhibaato loo sheegto waxba kama qaban jirin tayamaadana bay iska soo noqon jireen abalan bay ku qaadan jireen waxa kale oo jiro xukuumadda hore raadkoodii dhibaatooyinka ka ah oo hadda yaala degmooyinka waxa jira qandaraasyo heerkii laga bixiyay oo lacagtooda halka lagu qaatay guriyihiina ay qabyo yihiin oo sidii ay hadda ay u taagan yihiin baa jiro marka waxyaalaha xukuumadda hore ee macnaha dhibaatada hargabada ka soo gaar shacabka taas kamida caafimaadka maraan ka hadlo qofka riflaalka ee laga soo qaado Guradhaha Moole waxa la keenay Hargeysa intee kilomitir bay isu jireen taa waxaan ku codsanaynaa in loo dhiso isbitaal riflaalka la keenay haweenka ilmo islaanta haweenku ilmo ku xumaado waxa laga soo qaadaa Guradhaha Moole Hargeysa waa la keenaa kuwa badan ma kulinti oo asxaab waa raf weeyaan ha wada maadaama in la shaqeynayo laakiin in waxaan codsanaynaa in isbitaal riflaal loo sameeyo ta kale waxa jira suuq meelaha xoolaha lagu gatay jira sida hargadaba kale iyo qundi seelada xoolaha diirar male hadda ku hor waan u sheegnay kulay qolo tagtay waan u soo sheegnay marka taan waxaan ku codsanaynaa dawladda in loo sameeyo diirar maadaama dakhliga dawladda uu ku fakanayo waxaan marka xukuumadda ka codsanaynaa oo fariintan aan halkan uga faa'iideysanaynaa wadada Guradhaha Moole isku xigta Qarsaduule xukuumadda hadda miisaanadu qabatay in loo dedejiyo xaqniinka loo dedejiyo buundada la saaray loo dedejiyo si maxaan ku raad adeegii shacabka ee gobolka kaga xidhnaa oo u fududaado in maxaan ku raad taas waan codsanaynaa waxa kale oo codsanaynaa oo waliba madaxweynaha xukuumadda iyo xafiiska wajidadka waxaan ka codsanaynaa wada yar waxa jirta wada agooneed la yiraahdo waxay noo dhaxaysaa degmada Guradhaha Moole waxay u dhaxaysaa degmada Oromiya noogu xigtay diriska nala iyo 7 kilomitir ah Jibri wadadii Jaygeed Baali bay ka timid 7 kilomitir Jibri bay ku ekaatay dhulku waa carramadow roob yar haduu da'o waxa weeye 7 kilomitir gabar haday foolanayso lama qaadi karo madaxweynaha waxaan si gaar ah uga codsanaynaa annagoo asagana hor fadhigiisana aan kaga codsanay halkan aan kaga codsanaynaa in 7 kilomitir madaxweyne aan kugu xasuusano meesha oonka markaan ku soo noqdo Gurabaqaqsa saaka waxa laga yaabaa degmooyinka qaarkood ama qabalayaasha qaarkood aan iraahdo inaan 48 saac la soo dhaafay dabla shidan biyo la'aan hal booyada baa ka jirta xog degmadu lahayd booyadii way jabtay